diinta islaamku fawdo ma ogola labada qof ee wada joogtana fawdo looma ogola dad ka badanna fawdo looma ogola xataa haddii ay yihiin laba qof waa nin iyo xaaskiisa guriga waa inuu maamul leeyahay maamulkana cidda ilaahay siiyey ayaa iska leh adilo fara badan oo aad u badan oo min sunnati nabiy sala allahu alay slam ka mid ah ayaa xuquuq fara badan dumarka dushooda la saaray ee raggooda ay ku leeyihiin waxaa ka mid ah inay ateecdo ilaa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma soomayso soom tatawuca ilaa ninkeeda u idmo oo u ogolaado waxaa la yidhi gurigiisa ma soo gelin karto cid kale ilaa biidni waxaasoo dhan maxaa lagu ilaalinayaa fawdada iyo isku dhexyaaca laga ilaalinayaa qoyska iyo guriga si gurigaasi uu noqdo mid nidaamsan oo kala dambayn leh gabadhuna markay guursato waajibaad fara badan ay koray xuquuq badan ayaa ninkeedu ku leeyahay ninkana kadaalika xuquuqaa lagu leeyahay haddii marka labada jaanib mid walboo ka mid a xuquuqda ilaahay saaray uu guto khilaaf iyo shiqaaq ma imaanayo laakiin khilaafaadka faraha badan ee qoysaska iyo reeraha soo gala xagee ka yimaadaan waa ku dhaqanka diinta islaamka oo laga waayo qoyskaas ama jaanib ha laga waayo ama labada dhinacba ha laga waayo diinkaani waa mid ka yimid min cindi illaahi alcasiizi alxakiim alla xigmad badan xaggii ayuu ka yimid wax walbana meeshii u munaasabaha ayaa la dhigay haddii aad rabto maslaxo adduunyo iyo mid aakhiro labadaba diinka ku jira alcamal bidiin illaah caza wajal altamasuk bisharci illaah masaalixdaada adduunyo iyo midii aakhiro labadaba waa kugu jiraa wixii mukhaalafo ah oo aad sharciga ku khilaaftana waad ka shallaynaysaa fi dunya wa fi laakhira waa dhibaato kugu soo noqonaysa adiga waa dhibaato qoyskaaga ku soo noqonaysa adduunya aakhiraba dhibkeeda aduu ku gaaraya kala dambayn la'aanta iyo kala warqaadasho la'aanta waa waxyaabaha qoysaska burburiya ee baabi'iya rifqiga iyo dhibrinta iyo dulqaad la'aantana waa waxyaabaha reeraha burburiya labada jaaniba xuduuda sharcigu u yeelay waa inay xuduudda ilaaliyaan dumarkii waxaa la amray inay raggooda ateecaan raggiina waxaa la amray inay wanaag kula dhaqmaan wacaashiruuhunna bilmacruuf waa amar ku wajahan ragga inay dumarka kula mucaamilaan mucaamalo wanaagsan waxaana lagu sii sheego oo lagu sii hormariyey inaadan ka rajaynin inay mar walba ku toosnaato oo waxaa dumarka laga abuuray buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam min dilac feer baa laga abuuray feertu waa qalloocdaa soo ma haddaad isku daydo feer qalloocan inaad toosido waad jebinaysaa wa kasruhaa talaaquha jebinteeduna waa furitaankeeda marka calac wijaajiha waa inaad ku haysato ayadoo qalloocan waa inaad qallooca ku haysato ood qalloocaas ku dhaqdo oo qallooceeda aad ku sabarto waa wax laguu sii sheegay hadday gabadhu tahay midda dadka ugu cibaadada badan ugu aqoonta badan qalloocaasi mar walba waa ku jiraya ha rajayn in qalloocaasi ka maqnaado laakiin waxaa lagaa rabaa inaad ku tala gasho ood kula sabarto haddaad tidhaahdo laakiin maxaa waxaan loo sameeyey tilaabo walba iyo qalad walba aad ka dagaalanto nin reer dhaqi kara ma tihi fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan laba ilaahay ku kala dooransiiyey subxaana wa tacala labada mid inaad doorato waa inaad wanaag ku haysato wanaag kula dhaqanto iyo inaad wanaag ku kala tagtaan taa waa xaggii ragga dumarkana waxaa la faray inay u hoggaansamaan oy ateecaan raggooda fii taacati illaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaan qof amri lahaa inuu u sujuudo qof kale la amartu almar'ata an tasjuda lisawjiha meesha la gaarsiiye fiiri haddaan qof amrayo inuu qof kale u sujuudo sujuuda ilaaha loo sujuudaa subxaana wa tacaala laakiin haddiiba cid kale loo ogolaanayo gabadhan waxaan fari lahaa buu yidhi inay ninkeeda u sujuuddo la amartu almar'ata an tasjuda lisawjiha waxaa sidaa loo leeyaha waa maxay waa licidami xaqihi calayha xaqa uu ku leeyahay weyninka uu leeyahay dartii wey xaq weyn uu ku leeyahay shiqaaqa marka iyo khilaafaadka usariga ah ee inta badan dhaca manbaceeda iyo aasaaskeedu waa cadamu tatbiiqi shariica shariicada oon la dabaqayn oo aan lagu dhaqmaynin wey taasa asal u ah ama jaanibka ninka ha ka timaado ama jaanibka gabadha ha ka timaado ama labada jaanibba ha ka timaado marka qaar waxaa dhici karta labaduba inay dariiqii sharciga ahay khilaafaan oo ay qardajeexaan oo ay dhinac maraan ama labada mid ka mid ah ayaa dhinac maraya meesha waxaa ka bilaabma marka khilaaf iyo isqabsi iyo dood ma'aalkiisa iyo markii dambe laga yaabo inuu ku dhammaado xumaan iyo kala tag si xun lagu kala tago oo aan wanaagsanayn waxaasoo dhan laakiin waxaa ka horreeya intaysan taa kugu dhicin ka hor intaadan guursanin ka hor ka fiirso guurka waxyaabaha muhiimka in laga fiirsado ka mid yahay intaadan guursanin ka hor fursadaa haysataa sooma bannaanaad joogtaa waxba lugta lamaadan gelin meel markaas meesha cagtaada dhigaysa iska fiiri qof wanaagsan diinan wa khuluqan raadso xag diin iyo xag akhlaaq labadaba hadhowta inaad shallaydo waxba tari mayso waxaa cajiiba markii laga hadlayo adduunyada insaanka adduunyadu aad ugu xisaabtamaa haddaa maanta lacag haysato ee aad rabto inaad qof la shirkowdo qofkaasi si sahla kula shirkoobi mayse ilaan lacagtaa ilaashanaysaa waxaad raadinaysaa qofkaasi ammaanadiisa waxaad raadinaysaa diinkiisa
waxaad raadinaysaa qaab dhaqankiisa dabeecadiisa waxyaabo badan qofka inaad ka hesho macluumaada cid walbood isleedahay qofkaasi aqoon u leeyahay waa weydiinaysaa waa sidaas Soomaaliya markii adduunyada shirkadaha la sameeyo aad loo xisaabtama wuxuu la qarqarayo waa maxay oo la baqaayo waa lacagtii adduunyada wuxuu isleeyahay afli waxay kaaga dhacdaa oo mid balaaya gacanta u gashaa lacagtaada oo hadhowti kaala goosta shirkadii adduunyada aad qof kula shirkoowayda haddaad sidaas u ilaalinayso qofkaad nolosha kula shirkoobaysid min baabin awlaa maaha inaad iska fiiriso ilaa noloshaada dhan ay kula wadaagaysaa oo awlaada imaanayso shirka ku tihiin hadhowti ayadana waa hooyo adigana aabba tahay caruurtu ay idinka dhaxeeya shirkaad ku tihiin caruurtuna waa ka qaalisan yihiin dahab iyo diinaar iyo dhaqaale adduunyo xayaatay nololaad wadaagaysaan iska fiiri marka hore xaalkeeda baar adigana taada waa la baaraya ilaa laba jaanib waa inay isbaaraan waay qof walbana inuu ku qanco waa in la baarayo adna dad lagu weydiin adna dad la weydiinaysa waa labada jaanib waa la isku maqnaanaya ilaa saa adiga wax u raadinaysid ayaa ayadana dooq ay u leedahay dooq hal jaanib ma nin odaya waxa laga sheegay waxa nin baa u tagay gabar doonaya markaas uu sifaad sheegay wuxuu yiri gabar waxaan rabaa sida u taal sida sifaad farbadan sheegay markaas uu yiri ogow ayaduba indha waa leedahay macnaha wuxuu ula jeedaa adigu saa sifaad u raadinaysa ayaduna sifaad u raadinaysa marka adiga waa adiga sifaadka raadinaya adigu sifaadka qorxoona ma leedahay laftirkaaga waa la iska kaafirin waxa laga yaabaa mid sifaadka aad sheegta leh inaysan adiga ku rabina suuragal oo cagsi ay kugu noqotay tira anigu nin sifaadkaas lama rabo laakiin sifaadka jismiga maxaa ka muhiimsan midka diinka iyo akhlaaqda ka muhiimsan qofkaani muuqaalkiisa si kasto u fiican yahay hadii dabcigiisu liito nolol ma jirayso haduu diinkiisa liitana nolol ma jirayso iyo barako min jiri maaya walidaalika ahadiith rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxay boorisay diinka markuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam tunkahu almar'atu li arba' afar shay uu sheegay wuxuu yiri li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diiniha afarti muxuu ka dooray wuxuu yiri fadfar bidaati diin taribad yamiinu gabadha afar arimood darteeda loo guursadaa qurux waa lagu doortaa maal iyo hantina waa lagu doortaa in dhaqaale iyo hanti leedahay nasab ay ka soo jeedo iyo usro wanaagsan ay ka soo jeedana waa lagu doortaa diinteedana waa lagu doortaa inay qof diin la ayta afar way Soomaa wuxuu yiri nabiga kaleey salaam waxaad ku dhagtaa oo aad qabsataa mid diinta u saaxiibka haday afar ku kulmaan mesela mid ay qurxoon tahay laakiin sifaadka kale ay ka maqan yihiin mid maal ay leedahay laakiin saddexdii kale ka maqan mid waxay ka soo jeedaa dad wanaagsan laakiin saddexdii kale ka dhiman midna diin ay leedahay laakiin saddexdii kale ayadana ka maqan afartaas midee dooranaysa oo nabiga kugu boorinaya kaleey salaatu wasalaam mid diin kale fadfar bidaati diin taribad yamiinu ku dhago qabsabo yiri mid diinka u saaxiibka midigtaadu ha boorowde waa xafiya boorin war ha ka tagin waa mid diin kale laakiin kuwa kale waa wax laga tanaasuli karo diin laga ma tanaasuli karo qof aan diin lahayn hadaa guursato adaa ka shalay doona si kastay u quruxdeedu waa qaradameeraad hadaysan diin lahayn waxba ku tarimayso haday ilmihi ka fasahaadinayso oo gurigaagii maamulkiisa aad laga yaabo inaad ajnabi ka tahay wax laga maqlaayo aan la arag tarbiyadii caruurtaada aadan tarbiyeyn karin ilaa ay waa lagu haystaa ayadii laga yaabo inaadan salaadiba ku karin waysan ilaahay u sujuudaynin subhanahu wa ta'ala laga yaabo gurigaagu inay heesaha iyo muusikadu ka baxayso ayada ay dhageysanayso ama ilmahaagaba ay dhageysiinayso ka soo qaad marka inaad kala tagtaan waad fasaxday meeshii maxaa jooga caruura joogta caruurna si hooyo looga gooyay wax sahlan ma idan ilmahaasi khatar ay ku jiraan diinkooda khatar ay ku jiraan waxaana sabab u ah ka fiirsi la'aantaadii hore ayaa sabab u ah iyo waxay naftaadu iska jeclayd markii hore raggu inta badan markay guur doonayaan sifaadkay fiiriyaan waa sifaad ku tacalluqda waxa naftoodu ay rabto oo shahawaadkooda calaaqa la leh wuxuu ku leeyahay inay dheer tahay inay cad tahay inay saas tahay sifaad fara badan oo wuxuu sheegayaa kaliya ku tacalluqda naftiisa war aawa diinki waxa laga yaabaa diinki inuu gadaal ka keeno uu yiraahdo inay xoogaa ma aragtay diinkeedu fiican yahay diinki tabacu ka dhiga maxaa la rabay inuu noqdo asalka koowaad inuu noqdo waxa kale oo dhan ay tabac noqdaan wax laga tanaasuli karo ay noqdaan laakiin aadan marna ka tanaasulin diinkeeda inuu wanaagsan yahay cagsiguna waa sidaas oo kale inay gabadhuna iska fiiriso ninka ay guursanayso si gurigaasi u noqdo guri wanaagsan caruurtaadu ay noqdaan caruur u dhaxeeya aabe ahlu diina iyo hooyo lamida kaalmo weyn ay ku noqonaysaa oo markaad adiga maqan tahay ilmahaagii ayada ka warqabaysa salaadii ay faraysaa quraankii ku amraysaa inay akhriyaan waxyaabaha diiniga bay kula dadaalaysaa kaalmo weyn adiga ku tahay mid kale nin walba wuxuu jecel yahay xaaskiisu inay adeecdo oo ay wax ka maqasho waa jecel yahay taacada yaa laga helaa iyo wax maqalkaas qof diin u saaxiiba la qof diin shaqo ku lahayn iyo zamanka waliba hadda la joogo waa khatar waay waxa laga yaabaa in lagu yiraahdo guriga anaa maamulay
maxaa yeelay zamankii raggu ay tali jireen waa la soo dhaaf hadda ayamahan dambe gaaladu waxay aad ugu dadaalaan inay dumarka ka hormariyaan ragga oo hogaankaba ayaga loo dhiibo ujeedaday ka leeyihiin waa hal ujeedo inay fasahaadiyaan dadka waa ogeen inaysan dumar ku filnayn inay wax maamulaan laakiin waxay u talagaleen inay wax fasahaadiyaan inuu qoyskaasi burburo aabi wuxuu noqdo tabac waa sida hadda qarbiga iyo wadamada reer galbeedka ka jirta ninku awood ma leh hadduu iswaalo waxa leeyahay waxaad u moodo in Soomaaliya la joogo waagi ragga tali jira waa laga soo gudbay dhowr lambar loo garaacayaa saa la xiraya inta ciidan loogu yeero haddii kale guriga si adab loo ku joogaya asoo martiya rag badan ay ku dhacday in guryahoodii laga eriyo gaaladu waxay rabaan waa heerkaas inuu qofku gaaro waana diin la'aan gabadha waxaas aqbalaysana waa qof aan diin lahayn oo diinkeedu liito daciif yahay aqoonna aan diinki u lahayn waxay u malaysaa marka inay wax fiican yihiin laakiin haddii ay tahay mid diin u saaxiiba waxay og tahay sharciga wuxuu amray og tahay diinka ilaahay bay qaadanaysaa haddii la waaniyo way waansamaysaa maxaa yeele waa qof saaxiibatu diina haddii la wacyigeliyo wacyigelinta saameynaya ku yeelanaysaa wixii la yidhaha allahi rasuul sala allahu calay wasalam way xarimeen waxay istaagaysaa xuduudda sharciga markay qofku tahay qof diin u saaxiiba marka wax ka qiimo badan oo ka weyn ma lahan qofka inuu markuu guursanayo xagga diinka wax ka fiiriyo ama diinka ugu hormariyo fadfar bidaati diin taribad yamiinu addunyaa mataa wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa sifadaasay wadataa almar'a asaalixa qof saalixada waa oo diin u saaxiiba اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين kuguma qasbaayo inaad faafiso balse Allah dartii ku faafi